kulan wacan daawade waa mar kale iyo xogta qarsoon waa Tuma Ramla Cali gabadh doonaysa in Soomaaliya mar kale wadada guusha ay ku hogaamiso Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka soo muuqanaysa tartanka feedka ee Olombikada ciyaaraha feerka sida ay u dhacayaan warbixin guud ee ku aadan gabadhan doonaysa in ay guusha u keento Soomaaliya waxyaabihii hore ay u soo sameysay iyo kaalinteeda muuqatay ciyaaraha ayaan muuqaalkani ku eegi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu channelkayga ku soo gaaro magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxamed go'aanka bixistii joogista adiga ayaa leh balse waxaan ka codsan lahaa inaad ila joogto oo aad channelka subscribe saarto xagaag ciyaaraha Olombikada adduunka ayaa dhawaan furmi doona iyadoo ay jiraan ciyaartooy badan oo doonaysa in tartanka sanadan ay ka qayb galaan Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay tartanka ka soo muuqan doonta wax walba sidooda ma ahaan doonaan Ramla Cali ayaa ah gabadha kale ee Soomaaliya doonaysa inay kaga soo muuqato markii ugu horeysay tartankan haddii xitaa markii ugu horeysay ay tahay kuma jiro qof rag ah balse gabar Soomaaliya ayaa doonaysa inay ka soo muuqato Ramla Cali oo ah gabar Soomaaliya ayaa mar kale taariikh u sameynaysa dalkeeda iyadoo noqotay haweeneydii ugu horeysay ee ka soo jeeda Soomaaliya ee uu tartanka ciyaaraha feerka Olombikada ka qayb gasha Ramla waxay shaacisay ama ay ku soo qortay barteeda Twitterka inay u soo baxday ciyaaraha waxayna noqonaysaa haweeneydii ugu horeysay ee si xirfadeysan feerka ugu tartamaysa ciyaaraha Olombikada iyadoo matalaysa Soomaaliya iyadoo ay ciyaaraha Olombikada bilaabanayaan bishan Soomaaliya waxay sanadkan haysataa ciyaartooy ku matalaysa Olombikada Ramla ayaa tartanka Olombikada waxaa ku weelisa Muniira Warsamo oo iyadoo Soomaaliya ku matalaysa qaybta orodka Ramla ayaan la safri doonin kooxdeeda sida ku cad qoraalka ay soo dhigtay Twitterkeeda balse saygeeda ayaa la joogi doona guul iyo guul daraba ka qaybgalka Ramla ee ciyaaraha Olombikada ayaa horumar weyn u ah tartanka feerka Soomaaliya haddaba waxaad isweydiinaysaan Ramla Cali waa tuma intan ila daawo Ramla magacayga waa Ramla Said Ahmed Cali aniga waxaan ahay Somali boxer iyadoo ilmo yar ay qoyskeeda ka qaxeen Muqdisho horaantii 90-meeyadii markii dagaalada sokeeye dalka ay ka socdeen qoyskeeda ayaa waxay dagaaladaas ku waayeen walaalkeed oo 12 sano jir ah xilliga Ramlo oo 31 sano jir ah waxay sheegtay in hadafkeedu uu yahay inay noqoto qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ah ee ka qayb gala tartanka Olombikada ee feerka Ramla waxay barashada feerka bilowday markii 12 jirka ay ahayd hooyadeedna waxay u sheegi jirtay in ujeedkeedu ay tahay jimicsi oo aanay tartanka doonayn waxay ku guuleysatay tartanka feerka Ingiriiska sanadkii 2016 waxaana haatan heshiis ay la gashay shirkadda qaabilsan tartamada feerka ee la yiraahdo Matchroom Boxing Ramla abaheed waxa uu ahaan jiray imaam waxaana ay ka qalin jebisay jaamacad marna waxay u shaqeyn jirtay shirkadda sharciyada ka shaqeysa laakiin waxay u soo rabaaxi jirtay goor dambe oo habeenimo 6 bilood kadib ayay ku noqotay ciyaartii oo nolosheeda sida weyn ugu yeeshay saameynta waa haweeneydii ugu horeysay oo muslimad ah ee ku guuleysatay tartanka feerka Ingiriiska muddo dheer ayay hamigeeda ku qarinaysay qoyskeeda oo waxay ka baqaysay inaysan u ogolaan doonin waxaa la joogaa xilligii aan sii xoojin lahaa mihnadeeda mid waxaa weli taagan riyadeeda ku aadan ka qaybgalka tartanka Olombikada waan ku faraxsanahay inaan bilaabo safarkaas ayay tiri Ramla Idia Heren oo kamid ah dadka garab ku ah Ramla waxa uu yiri sheekada Ramla waa mid qayrul caadi oo dhiirigelin leh in heerkan ay soo gaarto waxay u soo martay dhibaatooyin badan Ramla waxay ku biirtay shirkadda Matchroom shirkadaas oo taageeraysa qaar kamid ah dumarka ugu wanaagsan ee u taagan xuquuqda dumarka dunida waxay joogtaa goobteedii ugu habboonayd ay ku gaari karto riyadeeda in Soomaaliya ay ku guuleysato tartanka caalamiga ee feerka Soomaaliya weligeed kama aanay qaybgelin tartanka feerka ee ciyaaraha Olombikada laakiin Ramla Cali waxay doonaysaa in labada arrimoodba ay ka dhabayso hadday guul ku soo hoyso haddii kaleba Ramla waxay rumaysan tahay in isku dayga arrintaasi uu guul u yahay marba qof dumar ah fariin soo dirtay baraha bulshada waxay ugu tiri ayay tiri Ramlo gabadheeda ayaa daawatay waraysi laga qaaday kadib waxay bilowday inay feerka barato waana 10 jir war fiican buu ahaa oo waxaan isri haddii aad sidaas qofku dhiirigeliyo ugu noqoto waadba guuleysatay ayay tiri Ramla Cali waxay Ramla sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay ka qaybgalka ciyaaraha Olombikada adduunka isla markaana ay dalkeeda Soomaaliya si wanaagsan u matali doonto iyadoo dhinaca kale u mahadcelisay taageerayaasheeda waxay sheegtay in muddo 10 sanadood ay ku jirtay feerka ay muujisay dadaal dheer iyo nafureed isla markaana ay dagaalantay 75 jeer ayna ciyaar feera u tagtay 20 dal haddana ay ku faraxsan tahay ka qaybgalka ciyaaraha Olombikada adduunka Ramla markay ku guuleysatay tartanka feerka Ingiriiska sanadkii 2016 qoyskeeda ma aysan daawaneyn sababtoo maaha inay diidanayeen ee warba uma aanay hayn waa haweeneydii ugu horeysay muslimada ee tartankaas ku guuleysata
waxaan xasuustaa markaan u tartamayay biladda heer qaran ee feerka reerkayagu waxay degnaayeen xaafadda Bethnal Green oo London ku taal ciyaarta kama dambaysta ahna waxay ka dhaceysay York Hall oo aad xaafadeeda ugu dhawaa ayay tiri Ramla Cali oo warbaahinta u warantay iyadoo hadalkeeda sii wadata waxay tiri waxaan xasuustaa inaan maalintaa tababarayga u sii dhiibtay boorsada qalabkii igu jiray oo aan ku yiri iska sii soco waan ka daba iman kadibna hooyaday aan ku yiri hooyo waan soo yara lugeynayaa hadhow baan soo noqon warba waanan u hayn inaan tagayo oo aan tartanka feerka ee heer qaran ka qayb galayo waxaas ayaan u soo maray feerka ayay tiri Ramla waxay barashadeeda feerka ay bilowday iyadoo aad u yar muuqeeda degani wuxuu dadi jiray sida ay ugu heelan tahay feerka qiyaastii markii 22 ay jirtay baan la ogaaday in feerka ay ciyaarto waxaan xasuustaa markaan tababarka ka soo noqdo in ay iyada guriga la wada fadhiyo soo galo oo aan israatalo maxaa dadka isu keenay sababtoo ah qoyskeeda caado ma aanan ahayn in qolka fadhiga ay ku wada sheekaystaan markaas durbadiiba leegu yiri jooji waxaad wado maxaad isla qaawinaysaa hablaha muslimiinta ahi waxay aad sameynayso ma sameeyaan waxaan waa ciyaarihii ragga bal dadku maxay oran doonaan markay ku arkaan ayay tiri Ramla oo ka waramaysa waayaheeda waan moraal dilaacay markaan hadalkooda maqlaa ayay tiri waa markii hore oo tartanka Ingiriiska ay u tartamaysay haddase waxay u tartantaa dalkeeda si ay u raali geliso qoyskeeda ayay Ramla oo markaa feerka fudud ee ciyaarta joojisay cadayna u noqotay oo kulba marka la ogaado way joojin jirtay tababarka ha yeeshee go'aankeeda halkaas kuma aan ahayn Ramla waxay ka qalin jibisay jaamacad marna waxay u shaqayn jirtay shirkad sharciyada ka shaqeysa goor dambe habeenkiina waxa ay aadi jirtay tababarka Ramla waxay ka sheekaysay caqabadaha nolosheeda ay la soo kulantay Ramla iyadoo ilmo yar ay qoyskeeda ka qaxeen magaalada madaxda Soomaaliya horaantii 90meeyadii markii dagaalkii sokeeye ay socdeen waxaana halkaas kaga dhintay walaalkeed in ay maanta nooshaa waxay kula noqonaysaa inay mucjiso ay ku soo badbaaday markii hooyadeed ay ka sheekayso dhibaatada qabsatay safarkii ay kaga qaxeen magaalada gurigayagii baanu ka soo qaxnay wax kasto aan haysanay waraaqayahayagii madaafiic baa dhaceysay rasaasna waa nagula ridayay dadka baabuurka nala saarnaa bay dileen ayay tiri Ramla hooyadeed Anisa Maya maalin 9 maalmood oo silac ah ayaan dooni u sii saarnayn Kenya oo ay Anisa sheegtay in dadka dooni kuwa shiraaca ay saarnaayeen macluul u dhinteen ayay Mombasa gaareen waxaan ku nooleen raashin ay qaramada midoobay siin jirtay markii dambena qaxootinimo ay ku tageen Ingiriiska London bay degeen oo Ramla af Soomaali kaliya ku hadasho oo waxbarasho ka bilowday waan yara hilbowna ileen cuntada Soomaalida aad bay u macaaneed deetana arday badan baa igu caayi jiray miiskayaga kadib baan tagay goobta jimicsiga ee jirdhiska ayay tiri Ramla kama dambaystii waxaan arkay jimicsiga feerka oo dadka la barayo waan ku biiray dhid baa iga daayo oo waan neeftuuray dabadeedna waxaan ku iri noocan baan jeclahay sidaa baan ku bilaabay natiijaduna waxay noqotay in jirkeygu uu dhismay kalsooni aan helay dad badanna aan la saaxiibay ayay tiri Ramla dhowr sanadood kadibna waxay si qarsoodi ah u tababarataba waxay bilowday inay ka qayb gasho tartanka feerka markaas ayayna bulshada baratay inkastoo weli qoyskeeda aanay ka warhayn waxa kaliya oo ogaa walaalkeed oo ka yar oo isagana qarin jiray hooyadeedu aad u diidaneed barashada feerka oo inanteeda oo aabeed kaga darneed ayaa tiri guriga waxay imaan jirtay iyadoo koofiyad iyo muraayad madow xiran maalin baan arkay indhaheeda oo madoobaaday markaas baan ku iri maxaa kuugu dhacay Ramla markaas ayay tiri hooyo waxba iguma dhicin marka la ogaadaba waxay qoyskeedu ku oran jirtay waan joojinayaa laakiin maalin ka hor maalinta loo soo god fariisanayo oo 2 sanadood ka hor ahayd ayay qoyskooda ogaadeen in weli ay wada feerka hablihii ay walaalaha ahaayeen iyo hooyadeed ayaa ninkay u doonaneed oo la Richard Moore oo qudhiis ahaa tababara feerka waxay u sheegeen inaanay u ogolaan inay guursato haddii aanay Ramla joojin feerka ay ku waalatay guurka caqabad baa ka hortimid waxay ila noqotay inaan idhaa waayahay waan ka joojinayaa anigoo og inaan iga dhab ahayn ayuu yiri Moore oo awow u ahaa tababarihii hore ee kooxda Chelsea Lex Sexton waxaan doonayay inay ku farxaan guurka laakiin waxay sidoo kale doonaysay inaan arko Ramla oo gaadhay yoolka ay higsanayso oo ka miro dhalisa waxay nolosheeda oo dhan u soo dadaalaysaa ayuu yidhi maalinta dharaartii ku xigtay ay Ramla ku guuleysatay tartanka feerka England laakiin markii ay aqal galayeen oo ahayd bishii Oktoobar 2016 ayay waxay joojisay ciyaaraha feerka maalin baa telefoon ii soo dhacay oo la ii sheegay in la ii xushay inaan ka qayb galo tartanka ciyaaraha feerka Yurub dabadeetana waxaan isri oo waan diiday waxaan ka noqonayaa tababare waxa uu ahaa go'aankii ugu fiicnaan weligii qaato ayay tiri Ramla iyada Ramla iyo Richard waxay weli wadaan dadaalka yoolka ay ku hiigsanayaan waxaana waraysi ay siisay TV-da Soomaalidu leedahay ku sheegtay Ramla oo ka sheekeynaysa dhacdada waxay tiri
nin ii abti ah baa ila soo hadlo oo igu yidhi aad baan ugu bahan weynahay, waxaan wadaa waddo fiican, aad baan ugu damaqaday markaan maqlay inaad muddada intaa leega qarsoodi kusoo waday. Habaqin, aniga hooyadaa u sheegaya waxaad samaynayso inuu yahay wax fiican oo aan ceeb ahayn. Alla maxaa maalintaas ooyayay tiri Ramlo. Kamba dambaystii Ramlo hooyadeed baa ogolaatay markay ogaatay in wax fiican ay u qaban karto dalkeeda Soomaaliya oo dhibaato ku jirtay. Iminkana waxay ka qayb galaysaa tartankaas. Sababtay hooyada iyo oran jirtay Jooji waxay ahayd waa bulshada oo dhaliishooda ay ka baqaysay, laakiin markay ogaatay in bulshada ogolaatay iyaduna waa ay aqbashay tiri Ramla. Run ahaantii iminka aad bay ii taageertaa. Ma malayn kartid farxadda iyo xiisaha aan ku galaya marka aad waxa jeceshahay kala sheekaysato qof aad jeceshahay oo aad dareen aan la cabiri karin ayay tiri. Ramla waxay sidoo kale taageeraan kala go' lahayn ka heshay bulshada ee hooyadeed markii hore kaga cabsanaysay inay dhaliili doonaan. Xilligaas wixii ka dambeeyana waxay noqotay in guulaheeda ay noqdaan kuwa lama taabtaan ah gabadhani ciyaarahana aad kaga muuqda. Ramlo markani waxay matali doontaa Soomaaliya. Guud ahaan aniga iyo taageerayaashanadaba iyo Soomaalidaba waxaan u rajeyn doonaa gabadhaas gool. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan ku soo gaaro, waxaan ka codsanayaa inaad like, subscribe iyo share baad ku samayso. Nabadgelyo. Soomaaliya ha noolaato.